وعلى wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aanu ku soo bandhigayno khariidadda ama maamka meelaha ay saameeyeen duqaymihii Ruushka ee ay waxyeeleeyeen ama lala eegtay duqaymihii kala duwanaa ee ay sameeyeen dawladda Ruushka iyo xaddiga gantaalaha ay soo rideen ciidamada inta gaadhay hadafkoodii iyo inta la qabtay amaba aan ku dhicin halkii lagu liishaamay ku soo dhawaada barnaamijka sidii aynu la soconay Isniintii meelo badan oo ka mid ah dalka Ukraine waxay la kulmeen duqaymo kala duwan oo ciidamada Ruushku ay ku garaaceen iyadoo magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale ee galbeedka iyo bariga sida magaalada Lviv iyo waliba Mariupol iyo Kharkiv ay la kulmeen duqaynta waxaana inta badan duqaynta lala eegtay xarumaha halbowlaha sida shirkadaha soo daaya leertriga xarumaha waaweyn ee ganacsiga bariijyada la isaga gudbo iyo meelo kale oo muhiim loo arkayay madaxweyne Putin wuxuu ku sheegay duqayntaasi inay tahay qayb ka mid ah argudashadii ay ku sameeyeen falalkii lagu qaraxii lala beegsaday jidka tareenka ee bariijka weyn ee isku xidha jamhuuriyadda Crimea iyo dalweynaha Ruushka intiisa kale Putin waxa uu yiri talaabadani waa mid aanu ku edbinayno Volodymyr Zelensky iyo ragiisa isagoo ku eedeeyay waxa kale oo Putin ku eedeeyay Ukraine inay isu diyaarinaysay inay jarto oo geyso khadka beebabka qaada gaasta ee geeyo dalka Turkiga dabeetana u sii gudbiya dhanka qaaradda Yurub inta badan magaalooyinka la duqeeyay meelo badan oo ka mid ah waxa ay yara ka go'ay dhuumihii biyaha iyo xarumihii biyo soo saarka iyo kuwii sifaynta iyadoo inta badanna duqaynta Ruushka lala eegtay xarumihii kaabayaasha nolosha kuwaas oo xanuun badan u geystay dawladda Ukraine inkastoo haddaba Ukraine ay sheegtay inay ugu yaraan 40 gantaal oo ka mid ah gantaalihii 80 ahaa ee lagu soo riday ay iska qabatay haddana ku dhicitaanka gantaalaha faraha badan ay ku dhaceen meelo muhiim ah waxaa loo arkaa inay tahay fashilaad military oo ku dhacday hogaankii ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi lahaa madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in dalkiisu uu isaguna argoosan doono isagoo aan faahfaahin dheeraadana sii bixinin khudbadda Putin aynu hore u sheegnay sidoo kale waxa uu ku eedeeyay dawladda Ukraine inay lafteedu duqaysay oo goysay meelo ka mid ah khadadkii leertriga ee gudaha dalka Ruushka waxa kaloo jirtay in Putin uu duqeeyay meel duleedka u ah xafiiska madaxweynaha Ukraine Zelensky talaabadaas oo loo arko in Ruushku ugu sheegayaan madaxweynaha Ukraine in markii ay doonaan ay dili karaan oo duqayn karaan halka uu ku jiro waxa kaloo duqeeyay meelo u dhow xarunta ciidamada ama hay'adda sirdoonka ee dalka Ukraine inkastoo la filayo in aanay haatan hay'adaha sirdoonka ee Ukraine ku shaqeynin xarumahoodii oo ay dhulku hoostiisa xafiisyo ka dhigtay waxa kaloo meelaha la duqeeyay ka mid ah xarunta ganacsiga ee dalka Ukraine bal aynu yara daawano Идите погоняйте иностранных. arrimaha dhacay waxaa ka mid ah in Ruushku bartilmaameedsadeen mid ka mid ah bariijyada lugta kaasoo ay dadka kaliya mara oo aan wax gaadiidaba loo isticmaalin bal aynu yara daawano bariijkana iyadoo waliba ay muuqato in gantaalkii lala doonayay in lagu duqeeyo bariijka dadku maraan uu seegay inuu ku duldhaco bariijka oo uu dhinaciisa ku dhacay haddii aynu u gudubno ahmiyadda ama ujeeddada barnaamijkeenna oo ahayd inaynu soo bandhigno maamka ama khariidadda magaalooyinka la kulmay duqaynta Ruushka ayaa sidaynu aragno duqaynta waxaa la kulmay magaalooyinka ay ka mid yihiin Kiev iyo magaalada Kharkiv iyo magaalooyinka ku teedsan webiga Dnipro iyo magaalada Lviv ee galbeedka jamhuuriyadda Ukraine waxa kaloo ka mid ah meelaha duqaynta lala beegsaday magaalada Odessa ee dekedda waxaa kaloo
meelaha ahmiyadda leh ee weliba lala sii egtay duqaynta waxaa ka mid ah xarunta tamarta cadceedda laga dhaliyo ee magaalada Kiev. sida ay dowladda Ukraine sheegtay, gantaalaha waxaa laga soo riday biyaha badda madow, taasoo u gudubtay galbeedka dalkaasi. maraakiib kale oo taagneed badda madow ayaa iyaguna ku duqaysay bartamaha dalka Ukraine, halka sidoo kalena gantaalaha qaarkood laga soo rogay magaalada Istrakha ee dalka Ruushka. maraakiib dagaal oo kale oo taagneed badda Qazwiin ayaa iyaduna gantaalaha laga soo riday, laguna duqeeyay bariga iyo koonfurta jamhuuriyadda Ukraine. dhanka kalena Ruushku waxay baahiyeen muuqaalo fiidiyoo oo ay ku sheegeen inay ahaayeen riditaankii gantaalihii lala eegtay meelo ka tirsan dhulka Ukraine. Российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления. waxaa kaloo aynu yaro daawanaynaa burburka iyo waxyeelada weyn ee duqaymahaasi ay u geysteen caasimadda Ukraine. Вот Шевченко. Есть раненые. Уже цивильные помогают. И скоро помощь. Перекрываем сейчас движение, пробку рассасываем. magaalada Kiev. madaxweynaha Ukraine sidaynu ogeyn duqaynta kabacdi waxa uu soo baxay wadooyinka, waxaana uu sheegay inuusan marnaba ka cararin xarumihiisii shaqada iyo magaaladiisii caasimadda, isagoo ballan qaaday inay dalkiisuna ay aar gudan doonaan.